wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa ka hadlay dawo ay ka dayrisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kulan saddex geesood ah oo ka dhacay xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland oo ay qayb ka ahaayeen wasaaradda horumarinta caafimaadka hay'adda dhowrista tayada Somaliland iyo ururka ay ku bahoobeen shirkadaha soo dejiya dawooyinka ee Diwa iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa waxa la iskaga weydiiyay sharoobada carruurta ee ay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka Hindiya taasi oo lagu magacaabo Maiden Pharmaceutical taasi oo aan dalkeena waxba u soo dhoofinin dawadan carruurta ee ay ka digtay WHO oo dalal ku yaal qaaradda Afrika carruur u dhalatay ay dhibaato ka soo gaadhay ayaa wasaaradda iyo ururka dawooyinka ee Diwa waxa ay cadeeyeen in aanay dalkeena soo gaadhin dawadaasi ugu horeyn kulankan waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka Diwa ee dawooyinka soo dejiya Yusuf Barre Ducaale waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mar labaadka anagoo ku hadlay magaca ururka Diwa ee dawooyinka u soo dejiya Somaliland markii anagu aan iswaraysanay ee aanu xubnahayagii ku noqonay yaanu arintaas ka baadhnay dawooyinka noocaas ah ee afarta ee lagu dhintay iyo xataa shirkadda samaysay lafteeda waan iska weynay oo imika wax wadanka yaala oo ama jaarka xataa yaala oo la og yahay ma jirto alxamdulillaah ma hadda taas waxa weeyaan waa guul dee wixii kale looga baahdana anagu diyaar baan la nahay saasumaan kuleyba waxaanu ka shaqeynaa waa dawadana waa wax xasaasiya oo dee caafimaadka qofka taabanaya marka inaanu mar walba dee ku shaqeyno guideline-kii iyo hagitaankii wasaaradda iyo quality controlka diyaar baanu nahay annaguna dee wixii aanu dad dee xilkasahoo dee mas-uuliyiina baanu nahay oo kuleyba intii taalka iyaga dee waanu dadaalaa dadka iyagana xubnaha iyagana waanu wacyigelinaa dee laakiin arrintaaynu maanta isugu nimi waxa war wanaagsan inoo ah inagiyo dadkeenaba inay dawooyinkaasi waddankeena oo inana soo gaadhin hay-adda dhowrista tayada ee Somaliland Mukhtaar Maxamed Cali ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyey glycol iyo ethylene labada maado oo runtii lagu sheegay in ilmaha yar marka la siiyo 6 ilaa 6 saacadood ilaa 4 saacadood ay u keenayaan kaliya xanuun ama kaliya ay fadhiisinayaan taas baana ay ku noqotay dawadaasi baajka la geeyay wadanka Gambia oo ku noqday khatar carruur badan oo satay oo ku dhow boqol inagana taas baynu digniinteeda iskugu nimid taas baana sababtay inaynu ka wada hadalno horta maxaa dalka yaala ee soo galay iyo wixii aynu ka yeeli lahayn waxa dambe wadanka soo galaya sida ay gudoomiyuhu sheegay wadanka lama keenin bay yiraahdeen hay'ad quality control ahaan hay'adda dhowrista tayada ahaan waxaanu samayn doonaa inaanu baadhis buuxda ku sameyno dhammaan dalka gudihiisa iyagana wargelinaynaa ciddii dawooyinka aragtaa inay nala soo socodsiiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda dhowrista tayadaba si aanu u baadhno baadhis buuxda aan ugu sameyno ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo shirkan ka hadlay ayaa waxa uu si faahfaahsan u sharaxay shirkadda dawadan samaysay iyo feejignaanta ay arintan ka samaysay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in dawooyinkani waa dawooyin jiray macnuhuna maaha maadooyinka dawooyinka ku jira maaha dhibaatadu laakiin waa shirkaddan gaarka ah dawada ay keentay ee ay soo saartay ayaa waxyaabo siyaadaha ama waxyaabo xumaaday ama waxyaabo ku kordhay ay jiraan taasaana keentay dhibaatada maanta taagan laakiin maadooyinkani iyaga oo intii loo baahnaa iyo cabirkii loo baahnaa isugu jira ayay yaaliin waddanka yaaliin laakiin waxaa laga hadlayaa waa shirkaddan gaarka ah dawadan iyadu siday wax isugu dartay ka duwan sidii loo baahnaa ka duwan weeyaan taasaana keentay waana dawo xumaatay
marka waxa ay iska eegaysaan ma aha maadooyinka dawada ku jiree waa magacan shirkadan ayaa iska hubinaysaan oo iska eegaysaan marka ayaan hadhowto farmasiyada waxa taala dawo la wada mid ahoo sidii loo baahnaa ay isugu jiraan maadooyinkeedu marka haddaa ku aragtaan taa maaha tii dhibaatada lahayd laakiin waxay eegaysaan waa shirkadan Maiden la yaaho Maiden Pharmaceuticals oo India ah ayaa iska eegaysaan taas weeyaan ta dhibaatada keentay taas India aan waxba ka iibin laakiin dabadda u dhoofisa waxa inageena khuseeya laakiin waxaan hubinay in cid xiriir la leh shirkadaas inaanay jirin marka in dadku ka didaan dawooyinka kale India waxaanu ilaalinaa waana ku ilaalinaa ganacsatada dawooyinka keenaya mid walibana dawooyinka meeshu ka keeno waanu la soconaa waxaana ay leeyihiin ruqsado u gaara marka wax saameyna kuma yeelan doonto insha allahu tacaala afartaa dawo kuma yeelan doonaan laakiin waynu u tooghayn doonaa wasaaradduna dhinaceeda ayay ka howlgelaysaa wixii dareen ay aragto waxa ay la socodsiin doontaa hay-adda dhowrista tayada si wixii baadhisahee markaa munaasiba looga sameeyo intaa waxaa dheer waxaanu mar kale soo cusboonaysiinaynaa liiska dawooyinka la ogol yahay dawooyinka xadidan iyo dawooyinka mamnuuca ah intaba inaanu dib u soo cusboonaysiino goobo kastoo ay wax ka soo degayaan aanu geyno dekedaha iyo eerboodhadaba aanu geyno hay-adda dhowrista tayada iyo wasaaradda caafimaadka iyagoo iskaashanaya inay si buuxda uga howlgalaan wax laale wixii khatar ku keenaya waddanka ama waddan kale usii gudbaya oo kaa kaleba dhibaato ku keenaya